ده هو ايتوكي وويل مسكين فقيرة waxaana ka soo jeedaa qoys faqiiriina aabihii uu dhintay laakiin hooyadii ayaa u nool hooyadiina waa askari dhanka military Aitokina mar walba noloshiisa waxa ilaalisay gaardiyaanka ah gabadhay hooyadii u xil saaratay loo yaqaan Kotsosi kaasi oo mar walba ilaalisa wiilka meel walba u dhaqaaqaya iyo meel walba u tagaya waxa uu kana waa bodycardkiisa weeyaan gabadhaas tartan Aitoki ma helin fursad uu kula baashaal asxaabtiisa waxaana mar walba ku mashquulay naftiisa waxbarashadiisa oo focus ku saaray inta ugu badan waxbarashada maalin maalmaha kamid ah waxa uu imanay macalinkiisa wuxuu ku oranayaa ka war hadda ka qayb gashay tartanka jimicsiga taasna waa aqbalay Aitoki wuxuu bilaabay inuu xoogaa ka yar fikiro kalaadii markii iskuulka laga soo baxay waxa soo kaxay adeerkiisa Tokusada isagoo gaariga la saaran yahay adeerkii waxa wiilkii Aitoki ku yiraahdo maanta shil ayaan gali gaaray oo dhimashan qarka u saarnaa laakiin si mucjisan u badbaaday kala xoogaa sheekooyin raskeer nolol maalmeedka ku saabsan iska sheekaystaan waxa aan habir u soo bandhigay muhiim baahay markay guriga yimaadeen guriga dhexdiisa waxa ku sawirnaa aabihii wiilkeero geeriyooday kaasoo loo yaqaan Hidoka waxaana guriga intii wiilkeer hooyadii markaas wiilku wuxuu yimaaday hooyadu wuxuu ku yiraahdaa hooyo waxaan rabaa inaan ka qayb galo tartanka jimicsiga markaas hooyadu ku faray wuxuu ku tiraahdaa waa ku garab taagan wax walba oo sameeyay wiilkeygii aniguna waan kugu dhiirigelinayaa ee tartanka ka qayb gal waxaan ku rajaynayaa guul horta anu su'aalan isweydiiyay qisooyinka ugu badan animeyaadka ama qisooyinka reality-ga dhaca adduunyadan qofku markii isagoo xaaladiisa ka jiro iska nabad qabo baa waxa ku soo fiiraysan gabadhaas noloshiisa way rabaysaa horta asxaabay gabadha maxaa ka khaldan anu gabadha kuma xadgudbay idin qisooyin fara badan oo aan dhageysto iyo kuwa carab aan dhageystay intaas uu ku arkay wax sababay ma garanayo haddaba ku socnay qisada animeegeena wiilkiisa noloshiisa iska dhigantay ayaa wax maalmaha ku mid oo yimaado warqadaas soo qortay gabadhaas loo yaqaan Saati gabadha oo gabar jecel wiilkan waxna soo badhiyay jacayl markuu wiilka arkay warqadii farxad buu la kala dhacay waay gabadha isagoo sii jecel markii hore una soo dhaweeyay jacaylkeeda gabadhina waxay weydiisatay inay deynta sameeyaan isla baxaan balse ku dhaay way ogolahay laakiin wiilkii Aitoki wuxuu bilaabay inuu hooyay ka qariyo arrintan laakiin waxa ogaataa Yumika oo ah tii shaqaalaha hooyada bodycardkiisa ahay islaanta inuu imata waxna ku tiraahdaa warkan kula sadan bisho kuleega qabso markaas ku tiraahdaa warka kule sheegayso waa maxay wiilkaaga miskiinka ah digayna gabadh ba maanta xaga deynta kula sameynayso noloshiisa qasir rabtaa ay ka badbaadimay ka wax intii masiibadaas fariila soo gal wiilkaaga markay hooyadii ogaato arrinkaas waxay ku tiraa wiilkayga aan tartan baa ku diray kuma dirin gabdho inaad la daba soo socotid waana ku diiday gabadhaasna ma raaci doonto ilaa ku guuleysatay tartanka jimicsiga hadalka ka inji hooyadiina wiilka kuma faray wuxuu bilaabay inuu xaroodo ku go'aan ku gaaray inuu gabadhaas si qarsoodi kula baxo wuxuuna yimaadaa adeerku wuxuu ku dhahday iga caawi gabadha waxa rabay in deynta la soo sameeyo iga caawi ku dhahdaa masuu ku dhahay way wiilkaygi uu garab jooga meel walba joogtay wiilkiina waxa rabay in la kulmo gabadha waxna ku tiraahdaa saaxiib ku tiraahdaa meelahan qabowga ma tagtaanaan karna namar qolka yaa la حاجة أفهم بقصص markay guriga soo galeen gabadhu waxay bilaabeen sababtoo ma sheega man ka daaya markii wiilku waxa kula meetan wiilku waxa wiil asluub leh sharaf leh wuxuu ku dhahay gala tag buu ku dhahay date ma ugu qayb galay waxa rabin waxa ma sameeyay isla markaas baa haday inuu hal mar wiilka sariirta hoosteeda fiiriyo saa wuxuu arkaa wala wan inuu guduudan sariirta hoosteeda isla markii gabadhu waxay bilaabeen wiilka midi ku sarto waxa soo baxa labadii ninna war Safwaano naga hagaajida xodka maxaa ka khaldan labadii nin iyaga kooxiisa u taagtaagay wiilkan garanayaan waxay ka sameeyaan ayaa hal mar waxa dhacay qarax gabadhii iska soo kayaxay bilowna wiilka soo badbaadisay meesha qolka ah ee la rabina caawa laga dhigta hamburger labadii qof iyagoo carray waxana ararkii ama orodkii carar ku heli laba qof oo kale labada qof wax loo yaqaan raaha iyo ko waana shaqaalaha hooyadkeer hooyadii iyagoo carray waxa dhan wadada horteeda gaariga loo istaajiyo waxana dhacay wadada dhexe loo soo wareegay wuxuu yiraahdaa naftayda waan jecel kadina lugahay wax ka daya ka taagantay ilaa hal mar saldhigay gali baa waxa dhacay markuu saldhigu soo galo isagoo raawin askartii u sheego waxa dhacay ayaa hal mar waxa dhacay in askarigiisana lagu garab gowraco wiilkina waa la qabto waxaan dhacay in laga xiro gacmaha oo silsilad laga xiro wiilkii isagoo quus taagan wuxuu sameeyay garanla ayaa hal mar waxa soo baxa la xayaatal min dunaadi waxa soo baxa adeerkii wiilka yar kaasoo ah masiibadii lugaha soo galisay wiilka yar wuxuu isku dayay inuu halda ka badbaadiyo kaasoo loo yaqaan Tokusada odaga isagoo calaysan baa wuxuu yiraahdaa ma wiilkayga yar waraamta rabtina maanta xagan ku garab dishiin wuxuuna bilaabay inuu dabargoyo kooxii meesha joogto dhan markii wiilku soo laatay miirkiina wuxuu arkay soo gurigiisa dhex jeefa markuu indhaha soo kala qaadan wuxuu arkaa dad fara badan oo hooyadii madaxa fuurinay kule waxa tay hogaamiyaheena hogaamiye ku celinay islaantan waxay ku tiraahdaa anagu waxaan nahay kooxdaas oo ninja ah oo mar walba waxaan badbaadinaa tuuladan loo yaqaan IGA markuu wiilkii maqlay hadalka ninjaan isku naxuuna yiraahdaa kaale ma waxa noqotay hooyo sharlaawayaal asoo tira wiilkayga isdaji ninjaagu waa dad mar walba ilaaliya nabadda wayna jecel yihiin nabadda dadka masaakiimeen lagu cawaandiyooda adduunka ugu neceb yihiin waana sida booliska laakiin booliska ka madax banaan yihiin وأسيدكم من شعر البيت waxay ku tiraahdaa hadana waxaan rabnaa inaan carqaladayna ama aan dhibaatayno tuulada kale loo yaqaan kooga ma hadii xayaat wax nolosha noocani tuulada nabad yani ilaashanaysa tuulo kale oo rabta inay carqaladeeyaan taas ma lagu tilmaami karaa booliis
waxayna ku tiraahdaa wiilkayga waxaa tahay dhaxalka rasmiga ee kooxda ninja waxaana loo yaqaanaa IGA markay waxaasoo dhan hooyadii ku tiri waxa wiilka inuu ka labalabay u idhaahdo maan hooyo ma rabo inaan dhibaatooyin galgalo mana rabo inaan noqdo ninja markaas hooyadu waxay ku tiraahdaa wiilkayga ku qasban tahay mas-uulku wuxuu bilaabay inuu fikro idhaahdo hooyada intaasoo san usoo dagaalamay inay noqoto ninja inuu ilaashato beesheeda ama yacni meesheeda uu ilaashato booska nimad ah ugu dambeyn uu aqbalay inuu ku biiro yacni kooxda ninja uuna u noqdo hadhow markii hooyadii dhimato hogaamiyey sidaas darteed waxaa loo diray akaadamiyada ninjaaga oo ah goob dhexdhexaad oo kaasoo ay maamusho NSC kaasoo loo soo gaabay North Somalia Corner waskale asxaabi hay'adda waxaa loo yaqaanaa NSC laakiin wiilku waxa lagu dhahay intaan akaadamiyada aadna gelin waa in marka ugu horeysa aad baastaa imtixaan aad u adag oon gali rabno imtixaankaasoo lagu qaban doono meel ay Koga maamusho kooxda Kogo waxaana lagu yidhaahdaa mar ugu horey tartanku wuxuu ka bilaami doonaa dhuumasho iyo raadis markaasaa wiilku wuxuu bilaabay inuu ardayda fiiriyo wuxuuna arkaa gabadhii Saati taasoo ku ridi gaadhay god mugdiya wuxuuna yidhaahdaa adaaban kaa bilaabaya gabadhi wax baanu soo weeraro uu isticmaala qalabkan dabka lagu damiyo wuxuuna bilaabay inuu gabadha ugu dambeyn ka guuleysto imtixaankii koobaadna saas ayuu ku baasaa akaadamiyada intii lagu dhex jiray wiilku wuxuu bartaa saaxiibo cusub kaasoo la kala yaqaano Ryoka iyo Kira Ryoka wiil ku takhasusay qalabka ninjaaga wuxuuna ku fiican yahay loo isticmaalo sidoo kale meeshaasna wuxuu ku bartaa cadowgiisa ugu weyn kaasoo la yaqaano Susaku kaasna hadhow ay cadow isku noqon doonaa hada cadow maaya wuxuuna ka tirsan yahay kooxda Koga haddaba xagee ka bilaabmata cadaawada u dhaxaysa wiilka Itoki iyo Sasuke wuxuu aaminsan yahay in reerkan yacni uu ka dhashay wiilka yar ay dilaan hogaamiyahoodii hore ee ninjaaga wuxuuna wacd ku maray inuu yacni ka argudan doono Itoki iyo kooxiisa dhanba xaaladuna aad bay sii adkaataa reerka Koga waxay rabaan inay helaan ninjaaga koor ama qalabka naarta lagu helo oo sir ah oo ku jira tuulada eega dhinaca kale kooxii ku jirta hooyadii taasoo loo yaqaano NNC waxay baaritaan ku wadaan sababtay kooxda Koga u doonaysa inay la dagaalanto waxaana wiilka lagu dhaada hadda waxaa gali doona imtixaanka oo ka sii adag kii hore midka hore aad gashay imtixaanka waa mid aad u halis ah waxaana la kulmi doontaa Sasukina wuxuu degay shirqoole kaasoo yacni uu ka caawinay kooxdiisa dhinaca kale gabadha Kososti waxay iyadu fulinaysaa amarkii hooyada wiilka yar iyo Meika lagu magacaabay waxay go'aansatay in wiilkeeda badbaadiso si ay ka badbaadiso kana ilaaliso ninka Sasuke lagu magacaabo wayna u sheegtay waxayna ku tiraahdaa waxaan gali doonaa dagaalkaasoo la dagaalami doona Sasuke waxaan la dagaalamay adiga dartaa wiilka hadalkaas markuu murqo waxa dhayn isku naxo ku yiraahdo anigu waxaan ahay qof nabad jecel marna rabina go'aankaas qaatay aan u disho qof dartay isagoo wiilka wareersan wuxuu sameeyay garan oo isleeyahay sababta ku dilaysa maxay tahay waxa uu la kulmaa hogaamiyaha kooxda ninja hogaamiyuhu waa wiilkeer hooyay laakiin waa ninka yacni hogaamiyada iyada markay ka tagto meesha ka maqanta ninka hogaamiyada kala wada weeyaan wuxuuna ku yiraahdaa waxaan ku siinayaa talo dhaba wuxuuna ku yiraahdaa waxa tahay taladaydu ninjadu ma aha gacan ku dhiglaya laakiin wadadka qabta shaqooyinka wasaqda ah yacni dileelka badan geysan raba ama yacni shirqoolada iyo waxaas iyagu qabtaan si ay u ilaaliyaan nabadda adduunka mana aha dad xun aan kugu soo celi haddana fahmi wuxuu ku yiraahdaa ninjagu ma aha dad xun laakiin waxay qabtaan shaqooyinka khatarta ee shirqoolada ah si ay u ilaaliyaan nabadda adduunka uuna la dagaalamaan sharlaawayaasha markuu hadalka wiilkii maqlan waxa dhayn kalsooni ka qaado oo yiraahdo waan aqbalay waxaan ku jiri doonaa kooxda ninjaaga weligiina waan ka qayb ahaan doonaa wuxuuna tababar ka codsadaa gabadhi wuxuuna ku yiraahdaa waxaan rabaa inaad tababar sax ay siisid gabadhina way ka aqbashaa waxaana siisaa tababar aad u adag si uga guuleysay imtixaanka soo socda imtixaankaasuu noqon doona nolol ama geeri gabadhiina waxaa dhahay in waa qorshayaal ay dogto wiilkii yacni waxyaaba badan ay barto qorshayaashaasna waxay ku qortaa warqad waxayna ku tuurtaa qumaamada ama zubaalada ama qashinka markaasaa warqadda waxaa qabtay koox ka mid ah yacni kooxdii u dalinayay ninka Sasuke kadibna way qaadaan warqaddii waxayna u geeyaan Sasuke warqadan waxay ka filanayeen in wiilkan lagu qoray waxyaabuhu degi doono yacni meeluhu bixi doono markuu dagaalamayo iyo yacni suu dagaalami doono suu ka taxadaro Sasuke oo ah ka isweerari doonaan mise haajumi doonaan maalinkii imtixaanka la qabanayay qorshihii wiilka Sasuke degay isaga ayuu kusoo laabtaa yacni maxaa ka wadaa qorshihii ninkan uu degsanaa rabay inuu wiilkan ku burburiyo haddaba se wuxuu dhaceen wiilkan Itoki shirqool ayuu u degay ninkan yacni Sasuke kooxdiisa shirqoolkaasi waa inay warqad ku qoraan waxyaabo beena kadibna warqadaas ku tuuraan qumaamada kadibna warqadaas koox ka mid markay qaadaan ay idhaahdaan waa fursad kadibna warqadaas markay arkaan yacni kooxda Sasuke xagaasna wiil ku ogaan doono qof taasoo dhexdiisa ku jira kadibna waxaa soo caray wiil yar wuxuuna ku yidhaahdaa mudan ay garaale hanaya waxaasoo dhan ka dambeeyay waan ku baraya wuxuuna bilaabay inuu jilba joogsado wuxuuna yidhaahdaa kooxda Koga waxay ugu hanjabayna kabtuuladeeda burburin doonaan haddii aan isaga la shaqayn markii xaaladiisii ay fashilantay ninka Sasuke waxa loo ku cadaadeen waxa dhahay inuu weerariyo kooxda Itoki oo wuxuu dhadhar isaga oo weerar kooxna wiilka Itoki soo weeraray kooxda kale markay ku jiraan kaynta intii gabadha Kisoke ee wiilkan shaqaalaha oo ahayd intii la dagaalamaysa kooxda Koga ay wax bilaabeen lagu qarxiyo bambawi lagu soo tuuro gabadhiina waxa dhahay inuu ku soo duumo darbigii waxaana ay weydaa tamartii ninjaaga taasoo la yaqaan ninja core waxaana ka dhigtaa mid aan dhaqaaq karin oo bila awooda
yacni qalabkii dhan ay ku dagaalamaysa way weydaa gabadhaasi markaasaa ninkii Sasuke wuxuu bilaabay wiilkii yaraa soo burso dhanka kale intay yimaadaan wuxuuna ku qaylaa yidhaahdaa wad u dhiman doontaa ninkii loo yaqaana Kashin kaasi oo hogaamiyihii hore kooxda Koga markaasaa wiilku u qaylaa wuxuuna ku yidhaahdaa anigu maxaan kugu sameeyay dad baa kaada dadka hore u doonadee anigu maxaan kaa gala soo igu rabto inay igu dishid markaasaa wiilku wuxuu isticmaalaa qiiq wuxuuna bilaabay inuu kusoo sii daaya ninkii Sasuke waxaana dhacay ninkii Sasuke inuu ku dhaco oo yacni laga jabiyay qalabkii tamartiisa wuxuuna noqday mid aan awood lahayn xagaasna waxaa fursad ka helay wiilkii Itoki wuxuuna ku bilaabay inuu wiilka soo dulsaago ku yidhaahdo kuma jecli mana rabo inaad noqotid gacan ku dhiigle fadlan argudashada nagu wada iska daa wiilkiina wuxuu la dhacay daar darteed dhulka ayuu wuxuu bilaabay inuu miir dabalsan waxa dhacay wiilkii inuu yimid la keenay isbitaalka markuu wiilka soo saro kaco wuxuu arkaa saaxiibadiisa oo yacni garab taagan siiba gabadha Kosotsi ayuu la yaabo wuxuuna yidhaahdaa gabadha miskiinta ahayd iyadoo dhaawacana intaasoo maalin dul taagan malaha war saaxiibo isdeji maalmaad hurdina kaliya waxaa jiiftay waa saacado yar hadaba asxaabin rasi aan ii sheegay gabadhan Kira lagu magacaabo wiilka garab taagan iyadu waa jaasuusad u shaqeysa jaasuuskaas oo shaqeeya ninka Sasuke oo yacni hogaamiyaha kooxda ninjaga wiilkiisu waajahayeen dhinaca kale adeerta Kusada wuxuu ku dhuntaa xarun sir oo Koga leedahay halkaas oo ku arkay iyagoo tijaabooyin ku sameynaya meydka Kashin kaasi oo hogaamiyihii hore kooxda Koga wuxuuna la hadlaa ninka baaraha loo yaqaan Shoinik wuxuuna ku yiraahdaa kooxda Koga waxay qabataa shaqooyin midoow kaasoo ka baxsan nidaamka ninjada hadaba saaxiib su'aal baan ii weydiinayaa waxa jira sanadku 4 waqti uu leeyahay xagaa jiilaal dayr iyo gu'u uu leeyahay marka keebad ugu jeceshay ma xagaaga dhulku iska nabsiska yahay barwaaqada yahay ma jiilaalka dhulku barafka yahay sida Ingiriiska Jarmalka mise waxa jeceshay guga oo dhulku kulul yahay mise dayrta commentiga baa noogu soo qor su'aashaas waxaan ii weydiiyay wiilkii yar markii la gaaray xilligii waxay isku raacaan gabadha Kira kaasi oo gabadha Kira waa bixi jooga tuuladaas aabaha Ryokon wuxuu ku qasbanaaday inuu la shaqeeyo kooxda Koga kadib markii la gubay xaruntoodii farsamada ee alaabaha qaar ku samaysan jireen maalin maalmaha kamid waxay yimaadaan webiga waxayna bilaabeen inay kalluun ka soo qabtaan markaasaa wiilkii Kosotsi oo isagu uu qaban kari waayay kalluun xaga saddexdii qof ee la socday Kosotsi iyo Ryoko iyo Kira iyagu xirfadlayaal ku ayaan soo qabta kalluunka dhanka kale aan soo laabana kooxii kale ee ninjaga ama akademiyadii kooxda akademiyada waxa dhacay in qaraasa ka dhex bilaamo labadii kooxeed ee NSC iyo kooxii kale Koga oo ay laba cadow isku soo horjeeday marka horeba markaas waxaa la diijiyaa shir weyn oo dhaxeeya ninjada ama akademiyada shirkaasna waxaa ku jiray hooyada Yomika ama wiilka Itoki hooyadii waxay isku dayday in nabad raadiso tiraahdo walaalayaan isfahanna sidoo wax u wadiin markaas waxa shirqoolanin loo yaqaan Genji oo kamid ah kooxda NSC kooxda Koga mar walba waxay rabtaa inay gabadhaas ay disho Yomika oo ka tirsan kooxda NSC oo labadoo yacni kuma dhacaan isdilaayaan laakiin shirqooy ay rabaan gabadha inuu degaan kaasi oo burinaya yacni sharciyada ay kala dejisteen ninjayadu yani fahansiya haddana fahmi asxaabay waxaa jira laba kooxood labada koox wax la kala yidhaahdaa NSC iyo koox kale oo yaqaana Koga labada kooxoodna waxay kala leeyihiin sharciyo ama lowis qofkii ka soo xadgudbaana labada kooxood yacni way aqbalayaan in la dilo qofkaas marka gabadha miskiinta ee wiilka Itoki dhashay Yomika lagu magacaabo shirqoolkaas ayaa loo degayaa oo waxaa rabaa in lagu dilo si sharciyo koox kale aqbalsan yihiin ay ogol yihiin ugu dambeynna shirqoolku guuleystay shirqoolkaasi oo ah in yacni gabadhan Yomika ay ku soo eedeeyeen iyadoo bilowday dagaalada iyo yacni ay ka dhex bilowdo dadka kaasi yacni uu ku markhaati furayna kooxda NSC mid kamid oo loo yaqaan Genji wuxuuna la hoos uga shaqeeyaa kooxda Koga oo ah khiyaano la jaasuusa ugu dambeynna gabadhu waxaa la geliyaa jeelka waxaana lagu xukumaa dil markaas waxaa caddaatay in Kira uu yahay jaasuus u shaqeeya kooxda Koga waxaana xaggaas ka bilaabmay dagaal aad u culus laakiin masiibadu ugu darneed waxay dhacay markii Yomika la ogaaday in la dilo oo yacni geeriyootay cid dishayna cid kale ma ahayn waa Kosotsi see wax wada Safwan oo waleedin Kosotsi waxay ahayd ma gabadhii ilaalinaysa wiilka yar ee yacni gabadha kale Yomika la dilay u shaqeynaysa Soomaa gabadha yar Kosotsi miskiinta wax lagu sameeyay yacni taqasul dimaaq ama yacni maskax taq waa lagu sameeyay gabadhii yacni wixii ku jiray macluumaad maskaxdeeda dhan baa laga tirtiray oo gabadhii waxa laga dhigay inay cid ku noqoto Yomika ugu dambeynna Yomika iyadana iska taxadirin ay dishay dhanka kale wiilkii Itoki wuxuu ogaaday in yacni waxaan ka dambeeyay ninka loo yaqaan Raha oo ah yacni jaasuus aad u weyn oo xun ugu dambeynna wiilkii wuxuu soo galaa tuuladii yacni ka dhacay dagaalku wuxuuna bilaabay inuu hogaamiyo kooxda ama yacni kooxda NSC wuxuuna soo qabtaa ninka loo yaqaan Kido kaasoo ka dambeeyay shirqoolkii yacni loo degay gabadha Yomika ay wiilkeena hooyadii ma doonin inuu wiilkan ka arguto ninkan uu dilay laakiin wuxuu rabay in yacni si sharci u dilo oo dadkuna ka aqbalsan yihiin wuxuuna la soo baxay kaamiradaas wuxuu ku duubayay oo yacni sirtiisa dhanba soo kashafaysay markaasaa Kido wuxuu isku dayay wiilkeena inuu dhabarka ka toogto waxaa soo dhex galay odayga Tasaada ee adeerka wiilkii ahaa wuxuuna bilaabay inuu ninkii Kido uu dilo dagaalka kadib nabadda dib u dhalatay Kosotsi wuxuu noqday hoggaanka kooxda Koga dhanka kale gabadha Kira waxay noqotaa tariisho
wiilkii yara Itoka isagana wuxuu dhaweeyey riyadii hooyadii ku riyoonaysa intaasoo sano oo ahayd in wiilka ugu dambeyn noqdo hogaamiyaha kooxda ninjaaga kaasoo badbaadin doona dad fara badan nabadna dhalin doona deegaan ka dhigi doona nabad wuxuuna idhaahdaa hooyo waxaan jeclaan lahaa inay aragtaan oo noqdo hogaamiye caadila oo dadka si fiican ugu adeegaya oo dadkuna jecel yihiin oo nabad dadka dhex dhigaya wuxuuna bilaabaa inuu wiilkiisa ka murugoodo intaasaan asxaab maanta kusoo gabagabeynayna muuqaalkeena maanta fadlan hadduu muuqaalku xajiibiyey like saar subscribe saar macoodiin ilaahu naxariistay asxaab iigu duceeya inagoo raaliya oo yacni qof walba muslim oo dhibaataysan ilaahay dhibaatada ka dulqaado siiba walaalahayna Falastiin iyo Suudaan ee qof kastoo muslim oo dhibaataysan intaasaan asxaab inaga codsanaya fadlan muuqaalka like saar subscribe saar macoodiin iigu duceeya maca salaama waa shuufa ku fiicnay meejaaye